halkani waa kanaalka daruuraha ku soo dhawaada barnaamij aan kaga hadli doono nolosha qalafsan ee ay ku nool yihiin dadka howlgabka ah ee wali ku nool guri ay iyagu leeyihiin kuwaasoo intooda badan iska diiday in la geeyo goobaha lagu xanaaneeyo dadka gaboobay taa beddelkeedana ka doortay inay kaligood ku noolaadaan guri cidla ah. qisadeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa oday da' kaasoo muddo 33 sanadood ah aan gurigiisa la hagaajin ama la nadiifin. haddii si kale aan u dhignana aan qashin in lagu tuuro mooyee aan qashin laga qaadin gurigiisa muddadaas 33 sano ah. inta aanan muuqaalkeena gudagelin fadlan like saar si taasi ay nooga caawiso in muuqaalkani uu gaaro dad badan ama share u dheh oo la sii wadaag saaxiibadaada kale ee Facebook. mahadsanid. qiyaas qof da' ah oo waqtiga iyo waayuhu ay ka daba yimaadeen oo kaligiis guri ku nool oo aan haysan cid u miciinta isaguna aan xoog dhaaxa haynin caruurtii uu dhalayna ay ka kala yaaceen oo noloshooda ay raacdeen kuwooda ugu naxariista badanna ay sanadkii mar soo salaamaan waalidkii dhalay daqiiqado yar kadibna ay ku yiraahdaan have a good night daddy habeenku waa kuu wacnaada aabe. dadkaasi waayeelada ah ee aan haysan qaraabo iyo asxaab soo booqata oo ugu yaraan ka war doonta waqtigoodana u hurta inay xaaladooda soo ogaadaan ayaa waxay markay tabartu ciisho iska dhex fariistaan kursiga fadhiga ee dhex yaalla gurigooda iyagoo keligooda keligood ah oo aysan jirin cid ay weheshanayaan waxaana ay saacado badan ku qaataan kursi fadhi iyo fikir aan dhammaad lahayn. qisadeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa oday Ingiriis ah oo lagu magacaabo John kaasoo 83 sano jir ah muddo 33 sanadood ahna gurigiisa aan la hagaajin ama la nadiifin. haddii si kale aan u dhignana in qashin lagu tuuro mooyee aan qashin laga qaadin gurigiisa. 33 sano waa waqti dheer waxaadna durbadiiba isweydiinaysaa aaway ninkan odayga ah caruurtiisii dadkii qaraabadiisa ahaa iyo saaxiibadiisii qaaliga ahaa. wiil uu dhalay odaygan waayeelka ah ee qashinka barkaday oo lagu magacaabo Peter ayaa u yeeray shirkadda guryaha nadiifisa ee lagu magacaabo Cashier Cleaning oo fadhigeedu yahay koonfurta Ingiriiska balse ay duqaan guriga uga nadiifiyaan. shaqaalihii ayaa loo sheegay in gurigan aan la nadiifin muddo 33 sanadood ah waxayna markiiba eegeen qashinka guriga yaalla iyo halka ay hawsha ka bilaabi doonaan. oday John ayaa la weydiiyay waxa ugu muhiimsan ee qashinkan tirada badan looga reebi karo ama waxa ugu muhiimsan ee uu kala hari karo qashinkan inta aan la qaadin ka hor. waxaana uu dalbaday telefishin duqoobay oo qashinka ka hoos maray iyo furo mooto oo mindha uu isticmaali jiray 50 sano ka hor. wuxuuna sheegay in furuhu uu qashinka ka hooseeyo uuna jeclaan lahaa in la soo helo furahaas. shaqaalihii nadaafaddu waxay codsadeen in odaygan xaafad kale la geeyo si ay hawl baaxad leh uga qabtaan gurigan uskagoobay ee muddada 33 sano ah cid u miciinta waayay. waxyaabihii yaabka lahaa ee ay shaqaaluhu ku arkeen gurigan ninkan waayeelka ah in suuligii ay gebi ahaan bixireen bundado qashin ah oo kaliya uu u soo haray fadhiga yar ee lagu saxaroodo halka marka uu jiif u baahdana uu sariirtiisii yarayd u sii marayo dhul aad moodo dalcado isagoo ku dul soconaya qashin fara badan kadibna qashinka dhexdiisa ka eeganaya sariirtiisii yarayd iyo ku beerto ama busto duqoobay oo mindha aan sabankan la dhaqin. isagoo nool ayaa oday John waxaa ciriiri ku noqday gurigii uu deganaa waxaana u soo haray oo kaliya kursi jikada yaalla halkaa ayuuna iska fariistaa oo waqtigiisa ugu badan ku qaataa. kooxdii nadaafadda ayaa waxay fureen armaajadii dharka ee ninkan odayga ah kadibna waxay u tageen suudadkii iyo kabihii uu ku xaragoon jiray oday John oo gebi ahaanba ruqruqay ama bololay. haweenaydii hogaaminaysay shaqaalaha nadaafadda ayaa kor u qaaday mid ka mid ah kabihii John mise kabtii waxay u daadatay sidii inuu aboorgalay. waxyaabaha kale ee ay ugu tageen guriga ninkan waayeelka ah waxaa ka mid ah warqad rasiid ahayd oo uu sanadkii 1997 dukaan wax kaga soo iibsaday taasoo haatan laga joogo muddo 23 sanadood ah. furihii mootada waa loo helay oday John hase yeeshee su'aashu waxay tahay mootadaas ama iyana mar hore qalashay oo uu odaygu u maleeyaa in waqtiguba uu ahaa 33 maalmood ee uusan ahayn 33 sanadood. muddo 3 maalmood ah ayay ku qaadatay shaqaalihii inay ku nadiifiyaan guriga oday John oo ay ku guuleysteen in ay ka saaraan 7 tan oo qashin ah.
gurigii oo la nadiifiyey wax badanna ka fiican sidii uu ahaa hase yeeshee weli u baahan dayactir cid u dayactiraysanna aysan jirin ayaa Mr. John waxaa guriga ku soo celiyey wiilkiisii Peter oo ay iska caddahay inuu xoogaa yar kadib oran doono haya aabe waan sii baxay ee nabaday. Dadka qaar ayaa waxay nolol xumada muddada dheer uu ku jiray ninkan gaboobay ay dusha u saareen wiilkiisa Peter oo ay sheegeen inay ahayd inuu mar hore aabihii guriga ka nadiifiyo. Waxaa jira dad badan oo ku dhacay niyad jab iyo isku buuq kuwaas oo ku nool guryo la mid ah midka haatan laga nadiifiyey John. Waxaan kaloo xusuustaa barnaamij kale oo aan daawaday oo ku saabsan nin talaajadiisa cuntada aan la nadiifin muddo sanado ah meel ka mid ah guriga ee uu fadhiyeyna uu ku tuuray haraadiga sigaar lagu qiyaasay in ka badan 2,000 oo xabo. Haddii aan u soo noqonno dhaqankeena suuban ee diinta Islaamka, waxayna faraysaa in waalidka loo dhimriyo oo aad loogu roonaado marka ay gaboobaan. haddii awood ay wax ku qabsadaan waayaanna la xanaaneeyo si la mid ah siday noo soo xanaaneeyeen muddo aan yarayn. Dhanka Soomaalida, haddii nin oday ah awlaaddii uu dhalay ay dayacaan, waxaa weli u haraya rajo kale oo ah in qaraabadiisii iyo asxaabtiisii ay ka soo war doonaan lana socdaan noloshiisa iyagoo ka caawinaya wixii ay awoodaan. Isaguna guri madow dhex fadhin maayee haddii uu socon karo waxa uu tegayaa magaalada, goobaha lagu qaxweeyay iyo masaajidda. Waxaa intaasi inooga eg muuqaalkii aynu kaga hadlaynay oday da' ah kaasoo muddo 33 sannadood ah aan gurigiisa la hagaajin ama la nadiifin. Haddii si kale aan u dhignana, in qashin lagu tuuro mooyee aan qashin laga qaadin gurigiisa muddadaas 33 sano ah. Are we going to have a look in your bedroom, John? Right, so you like, yeah. Let's try and squeeze in, because there's not much space, is there? With clutter blocking the hall, Careful. getting to bed at night is a little like doing an assault course. Okay. Wow. Daruuraha.